dowladani waa dowladii ugu horeysay oo bixisay waxbarasho free ah oo lacag la'aan ah 65 arday yaan waxaan siinaa waxbarasho dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku guuleysatay ilaahay uu la garab galay ayay ka mid tahay in koow jaamacadda ummadda Soomaaliya dib loo soo nooleeyo soo nooleynteedina aanay af noqon ee la xaqiijiyo in ay tahay maxaan ku yiraahdaa 1400 oo arday 1400 oo arday oo Soomaali ah oo gobolada dalka oo dhan ka yimid oo aan loo fiirin gobolku ka yimid iyo haybtu yahay iyo reerku u yahay ee imtixaan inta laga qaaday intii imtixaanka ku soo baramoostay fariista waxbarta la yiri aan la dhihin kootaha loo qaybiyo 4.5 lagu qaybiyo aan la dhihin waxa waaye Soomaalinimada iyo soo noqoshada qarannimada daliilka ka weyn ee loo baahan yahay maxay tahay walaalayaal waa daliil noogu filan in aan qarankii soo celin karno dadkeenuna ay yihiin dad nool oo qarannimadii u soo laaban karo u soo noqon karo dadkeenu inay yihiin kuwa qarannimada raba oo u cararaya maanta waa maalin taariikhi ah dawladda xukuumadda federaalka Soomaaliya 22 sano burbur kadib waxa u suurtowday xukuumadda inay soo celiso adeegyadii bulshada adeegii ugu muhiimsanaa oo waxbarashadii ahayd lacag la'aanta marka maadaama dawladda maanta ay soo celisay waxbarashadii lacag la'aanta dawladda federaalku waxay u tahay maalin taariikhi ah ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u tahay maalin taariikhi ah sababtoo ah annagoon dhahaynin ilmo walba maanta Soomaaliya joogo waxaan geynaynaa iskool lacag la'aan laakiin mar haddii ay bilaabatay oo ay soo noqotay adeegyadii bulshada kii ugu muhiimsan ahaa ee waxbarashada ahaa in labada usbuuc soo socdo gudahooda caruurtii la sajilay oo iskoolada u dareerayaan markii ugu horeysay waxbarasho tayaysan oo lacag la'aan ah oo dawladda gacanta ay ku hayso waa iyadana taariikh cusub iyo himilo cusub iyo dilo cusub oo ummadda Soomaaliyeed u bilaabmatay agaasinka waxbarashada ee wasaaradda horumarinta adeegga bulshada wuxuu u yahay taariikhi dad yar oo kooban oo habeen iyo maalin u fadhiyay arrintan oo maalin walba la isweydiinay ma suurtoobi doontaa riyadoodii iyo dadaalkoodii maanta inay run noqotay ayagana waxay u tahay taariikhi aniga markaan isu soo laabta ka shaqsi ahaan waxaan rabaa mudane madaxweyne iyo mudane yaal inaan wax yar warbixin idinka siiyo go to school sidoo ku bilaabmay ama hindisaha ah aada dugsiyada oo aan maanta u fadhino inaan daahfurno waxaan kaloo rabaa inaan idinku bishaareeyo hindisahan aada dugsiyada ama go to school initiative maanta xamar kaliya loogama fadhiyo waxaa loo fadhiyaa Soomaaliya oo idil maanta xafladan lamid ah waxay ka socotaa Hargeysa waxay ka socotaa Garowe waxay ka socotaa Soomaaliya oo dhan marka waa arin aad iyo aad u weyn waa arin lagu farxo oo runtii ididiila cusub leh waa arin na tusinaysa haddii aan dadaalno waxa aan qaban karno ee suurtagal ah eber ilaa 1 milyan waa number ay u dhaxayaan wax badan يعني وزيرة maalintii loo magacaabay inay noqoto wasiir ma jirin iskuulaad dawladdu ay leedahay oo furan ma jirin macallimiin dawladda u shaqeysa oo macallimiintii wasaaradda la leeyahay ma jirin arday iskuulka aadaysa oo u aadaya ayagoo aanan muxuu ahaay bisha markay dhamaato $10 la idinka rabaa la leeyahay ma jirin waxaasoo dhan ma jirin maanta marka waxay bilow u tahay nolosha cusub oo waliba dad badan oo aniga aan ka mid ahay oo da'dayda ah ama igu dhowdhow ama iga waaweyn intaba ay aad u xasuustaan macnaha ay leedahay iyo maanta markaan waalid noqonay ee bisha aakhirkeeda nala weydiiyo muxuu ahaay $10 $15 ama maxaan ku raadaay $50 oo jaamacadii ah yani iyo sidaan annaga wax ku soo baranay oo ku nimiday marka labada la isbarbar dhigo ayaa waxa ka soo baxaya runtii waxa ay tahay xaqiiqada dhabta iyo muhiimadda uu leeyahay public school in meel la yiraahdo public school oo hooyada maxaan ku radaa IDB ga ku jirta ama hooyada Soomaaliyeed maxaan ku radaa tabarta daran ee faqriga iyo dhibaatada barakacu haysta
maxaan ku raada ilmaha inta guriga kaga tagta saakay u qaraab tagaysa ee cunugiyo gadaasheed wuxuu doono sameeyay meeshuu raba ka dhacay ciday doonto inta wadatay waxay rabto u sheegtay oo maskaxdiisii muxuu ahay waxay doonto gelisay caawa iyada oo waxoogaa yaroo muxuu ahay la cuno u wada u soo noqonayso ee berri haddana meeshii ka bilaabaysa aan cunugii ka warqabin meeshuu ka baxay waxa uu baranayo cidda maskaxdiisii qaabaynaysa oo dib muxuu ahay u sheegaraynaysa aanan la garanayn waa waxa aan soo marnay 22 sano oo saas u soo socday maanta marka 22 sano hawsha soo socotay oo la gooyay oo la jaray waay oo caruurteeni iyo jiilka cusub ay loo jeediyay meesha hadda wasiiradu ay tilmaantay ee ah xildhibaankii iyo dhakhtarkii iyo siyaasigii iyo injineerkii iyo madaxweynihii berri inaan maanta muxuu ahay diyaar garayntoodii iyo ka shaqayntoodii oo muddadan daba aanan ka shaqaynin inaan maanta u jeesanay inaan ka shaqayno mashruuca aada dugsiyada aad iyo aad ayuu marka qiimigaas weyn u leeyahay waxa dawladdaana ay qabatay waxa ugu qiimiga badan oo ugu macnaha badan ayuu runtii uu ka mid yahay marka mashruucan waxaan leeyahay hambalyo wasiiradda iyo tiimkeeda la shaqeeyay waka shuba belo barakalawe abulshada beentaaskan ku soo barbaare belo barakalawe abulshada beentaaskan ku soo barbaare bu ha bota badna ya beena badna bota badna ya beena badna ya bye bye baby awaabehe beentaadana waa barte bugi oo been ka barmoosaye biriqu ab ka barmoosaye bye bye baby awaabehe beentaadana waa barte bugi oo been ka barmoosaye warya biriqu ab ka barmoosaye aga waka